dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaa qorshihii ugu dambeeyay ee kula wareegi lahayd hawada Soomaaliya oo 27 sano ee la soo dhaafay ay maamuleysay hay'adda ICAO. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa muddooyinkanba waday dadaaladii ugu dambeeyay ee dowladdu ay kula soo wareegi lahayd hawada Soomaaliya iyadoo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho la keenay qalabkii lagu maamuli lahaa hawada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda duulista hawada ee dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Omar oo 13 bishan December ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynayay fanaaniin Soomaaliyeed ayaa sheegay in 28 bishan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho lagu qaban doono munaasabad weyn oo lagu shaacin doono in Soomaaliya ay si rasmi ah ula soo wareegtay hawadeeda. wasiir Omar oo xilligan ku sugan dalka Canada ayaa sheegay in tallaabada lagu wareejin doono maamulka hawada dowladda Soomaaliya ay tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday. waxaana uu sheegay intaas ay muujinayso in Soomaaliya ay qarannimadeeda ay dib u hanatay. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.